Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Kusoo dhawaada warbixin cusub oo aan uga hadlayno warbixin falanqayn ah oo lagu daabacay bogga telefishinka Ruushka uu ku leeyahay internetka ee Russia Today, kaasoo ciwaan looga dhigay waqti intee la-eg ayaa ka haray in uu qarxo dagaalka Shiinaha iyo Mareykanka. Falanqayntan oo aad u dheer ayaa sidoo kale telefishinka Ruushka waxa uu ku xusay inuu dhici doono waqti dhow dagaal faraha looga guban doono oo dhex mari doona Beijing iyo Washington. Waxaa kaloo lagu xusay warbixintan in Mareykanka uu ku kalifi doono Shiinaha in uu ku dhawaaqo dagaal toos ah oo uu ku qaadayo jasiiradda ka falaagowday ee Taiwan, maxaa yeelay waxaa horey loo xusay in marka la gaaro taariikhda sanadka 2027 Shiinaha uu u qorshaystay in uu ku duulo Taiwan, markaasoo la saadaaliyay in Shiinaha uu dhanka awoodda militariga iyo dhaqaalaha ka hormari doono Mareykanka. yacni 4 sano ee soo aadan Shiinaha waxa uu ku sii xisaabtamayaa sidii uu u sii horumarin lahaa awooddiisa militari iyo dhaqaale. Mareykankuna si fiican ayuu uga warqabaa in Shiinaha uu sanadaha soo aadan dhinacyadaas uga hormari doono, awooddiisa militarina ay sii daciifayso. Maslaxadiisuna waxay ku jirtaa in duulaanka Shiinaha ee Taiwan uu hadda dhaco. Sababtu maxay tahay? Sababtu waxay tahay Mareykanka waxa uu doonayaa in ka hor inta aan la gaarin waqtiga uu Shiinaha u calaamadeeyay in uu qabsado Taiwan oo ah wixii ka dambeeya 2027 uu ku qasbo inuu dagaal qaado, maadaama Shiinaha xilligan la joogo uusan weli gaarin heer uu dhinaca militariga kaga horeeyo Mareykanka. Falanqaynta warbixinta ayaa ku soo dhamaanaysa in Shiinaha uu ku qasbanaan doono in uu hadda xilli hore dagaal qaado, si la mid ah sidii uu Mareykanka intii uu socday dagaalkii labaad ee adduunka Japan ugu qasbay in uu soo galo dagaalka kadib markii Mareykanka uu xayiraad dhaqaale oo aad u xun ku soo rogay Japan. Ka hor inta uusan bilaaban dagaalkii labaad ee adduunka, dhaqaalaha Japan waxa uu u muuqday mid sii burburaya, waxaana Japanka u furneyd in ay dagaalka ku dhamaadaan ama in ay baahi u dhintaan sababo la xiriira xayiraadaha uu Mareykanka ku soo rogay oo aad u xumaa. Sidoo kale intii uu socday dagaalkii labaad ee adduunka waxaa sidaas oo kale ku dhacday hogaamiyihii Jarmalka Hitler kadib markii Ruushka uu gaaska ka joojiyay. Taangiyada Jarmalkuna waxay ku sigteen in ay la dhaqaaqi waayaan shidaal la'aan, taasoo Hitler ku qasabtay in uu duulaan lama filaan ah ku qaado midowgii Sofiyeeti si uu u qabsado ceelasha shidaalka Ruushka, balse qorshahaas ma guuleysan. Ugu dambeyntiina wuxuu sababay jabkii iyo burburkii awooddii Hitler. Sidoo kale khatarta hadda xilligan la joogo taagan waxay tahay in inta badan gaaska iyo shidaalka la isticmaalo uu yaalo dalalka Carabta iyo Islaamka sida Sacuudiga, Qatar, Kuwait iyo Imaaraadka. Waxayna warbixintu leedahay sidoo kale wuxuu dagaal ba'an ka dhici doonaa dalalka Pakistan, Sacuudiga, Imaaraadka, Qatar iyo Kuwait, dagaalkaasoo salka ku haya arrimaha shidaalka iyo gaaska. balse intaan u gudagalin faahfaahinta warbixintan, haddii aad ka mid tahay asxaabta nagu cusub, nagu soo biir oo subscribe dhaho channelka, sidoo kale like saar muuqaalka si uu dad badan u sii gaaro. Hana iloowin inaad aragtidaada nagula wadaagto qaybta commentiga. Mahadsanid. haddii aan ku bilaawno warbixinta falanqaynta ee lagu daabacay mareegta Russia Today, waqti intee la-eg ayaa ka haray in uu qarxo dagaalka Shiinaha iyo Mareykanka. Sida warbixintu leedahay, waqtiga ka haray waxay ku soo koobtay in ay ka yar tahay 4 sano. sidoo kale maqaalka mareegta ayaa wuxuu inta badan soo xiganayay hadallada ninka lagu magacaabo David Cohen oo asal ahaan ka soo jeeda Yuhuudda balse haysta dhalashada Mareykanka, sidoo kalena ah ku-xigeenka madaxa laanta sirdoonka Mareykanka ee CIA-da. waxaana marsii horeysay uu sheegay Cohen in madaxweynaha Shiinaha uu amray ciidamadiisa inay u diyaar garoobaan duulaanka Taiwan ka hor inta aan la gaarin sanadka 2027. yacni hadalkan waxa uu ka dhigan yahay in sirdoonka Mareykanka ay hayaan xogo sir ah oo sheegaya in ciidamada Shiinaha lagu amray in ay u diyaar garoobaan qabsashada jasiiradda Taiwan ka hor sanadka 2027. haddaba maxay tahay sababta xilligaas uu Shiinaha ugu asteeyay in uu ku duulo jasiiradda ka falaagowday ee Taiwan? sababtu waxay tahay sida ay qabaan khubarada militariga iyo falanqayaasha Mareykanka in awoodda militariga ee Shiinaha ay xilligaas noqon doonto mid aad u sareysa, diyaarna uu yahay dagaal weyn in uu la galo Mareykanka, sidoo kalena Shiinaha uu ku guuleysan doono dagaalkaas. sidaas darteed maslaxadda Mareykanka waxay ku jirtaa in dagaalka uu ka soo hormaro xilligaas oo uu hadda dhaco ama ka hor inta aysan kaamil noqon awoodda militari ee Shiinaha. sida aad ka arki kartaan muuqaalkan, Shiinaha waxa uu isku diyaarinayaa in uu dib u qabsado oo uu dhulkiisa ku soo daro jasiiradda Taiwan, laakiin Shiinaha awooddiisa ciidamada badda waa mid daciif ah, maxaa yeelay weli ma uusan yeelan gujisyo nuclear ah iyo maraakiibta xambaara diyaaradaha dagaalka oo u dhigma kuwa Mareykanka.
sidaas darteed ayuuna Shiinaha ugu asteeyay sanadka 2027 duulaanka jasiiradda si uu u sii xoojiyo ciidamadiisa badda. Sidoo kale waxaan ognahay in ciidamo badan oo Mareykanka ka socda ay joogaan Japan iyo Kuuriyada Koonfureed iyo sidoo kale dalka Philippines oo dhammaantood ku yaala xuduudaha Shiinaha. Shiinuhu wuxuu dareensan yahay in haddii uu hadda qaado duulaanka Taiwan iyadoo weli uusan xoojin ciidamadiisa badda uu dagaalkaas ku jabi doono, waana sababta uu doonayo in uu 4 sano ilaa 5 sano dib u dhigo duulaanka. Dhinaca kale Mareykanka isaguna wuxuu dadaal xoogan ugu jiraa sidii uu hadda ama xilli hore Beijing ugu qasbi lahaa dagaalkaas, isagoo maanka ku haya awoodda ciidamada badda ee Shiinaha iyo inuu si fudud Shiinaha ugu jabin karo dagaal uu hadda la galo. dhinaca kale madaxweynaha Shiinaha ee Xi Jinping ayaa dhawaan taliska ciidamada badda amray in ciidamada badda Shiinaha laga dhigo kuwo caalami ah, yacni ciidamo leh maraakiib dagaal gujisyo awoodna u leh in loo rari karo meel walba oo caalamka ka mid ah. Sida aan ognahay Shiinaha awoodiisa military kaliya waxa uu hadda ku xoogan yahay dhinacyada ciidamada dhulka iyo hawada, waxaana xusid mudan in ciidamada dhulka Shiinaha ay ciidamada Mareykanka ku jabiyeen dagaalkii gacanka Korea, dagaalkaas oo dhacay intii u dhaxaysay 1951 ilaa 1953. dagaalka ayaa ku soo idlaaday in ciidamada Shiinaha ay jabiyaan kuwii Mareykanka kuna qasbaan in uu dib ugu gurto dhanka koonfurta Korea. Inkastoo Shiinaha waqtigaas uu aad ugu liitay dhinacyada hawada iyo badda iyo nidaam difaaceedyadiisa hawada, haddana Shiinaha maanta aan aragno wax badan ayuu ka duwan yahay Shiinihii barigaas. sidoo kale warbixinta falanqaynta ah ee lagu soo bandhigay mareegta Russia Today waxaa lagu xusay in madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping oo generaalka ka dambeeya sida aad ka arki kartaan muuqaalkan oo ah taliyaha hogaamiya ciidamada Shiinaha ee qaybta bari uu u magacaabay in uu noqdo ku-xigeenkiisa golaha militariga Shuuciga. sida aad ka arki kartaan muuqaalkan, halkan waa jabhadda uu maamulo taliyahan uu madaxweynaha Shiinaha u magacaabay in uu noqdo ku-xigeenkiisa golaha militariga. sidoo kale qaybtan uu hogaamiyo waa qaybta loogu talagalay in ay duulaanka ku qaado jasiiradda Taiwan marka la gaaro 2027. balse hadda waxa uu noqday taliyaha guud ee ciidamada Shiinaha, waxaana ka horeeya oo kaliya madaxweyne Xi Jinping kaas oo ah taliyaha ugu sarreeya ciidamada militariga Shiinaha. sidoo kale maqaalka ayaa soo qaatay kulankii ugu dambeeyay ee uu yeeshay golaha xisbiga Shuuciga ee hogaamiya Shiinaha, kaas oo dharaar cad iyadoo saxaafadu goobjoog ka tahay shirka intii uu socday laga eriyay waliba si bahdilaad ah madaxweynihii xilka ku wareejiyay Xi Jinping. sidoo kale waxaa shirka laga saaray dhammaan siyaasiyiinta u janjeerta dhanka Mareykanka, gaar ahaan kuwa aaminsan in xiriir ganacsi iyo mid diblomaasiyadeed oo wanaagsan uu Shiinaha la yeesho Mareykanka, taasoo iyadana ka dhigan in golahan militariga ee uu hadda magacaabay Xi Jinping ay yihiin kuwa hogaamin doona dhammaan go'aanada iyo siyaasadda Shiinaha ee ku wajahan Taiwan, Mareykanka iyo caalamka. ugu dambeyntii warbixintan ayaa lagu soo gabagabeeyay xilliga ay u badan tahay in uu dhaco dagaalka dhex mari doona Shiinaha iyo Mareykanka, waxaana ay u asteysay in uu dhici doono sanadka 2024 markaasoo ku aadan xilliga lagu wado inay dhacdo doorashada guud ee Taiwan waxaa hadda hogaamisa haweeney lagu magacaabo Tsai Ing-wen. waxay aad u mucaaradsan tahay siyaasadda Shiinaha. muddo xileedkeeda waxaa ka haray wax ka yar 1 sano iyo bar. xisbiga iyada mucaaradsan ee Taiwan ka dhisan ee doorashada kula loolami doona sanadka 2024 waa xisbi aad u taageersan, sidoo kalena inta badan sheega in ay doonayaan in ay dib ula midoobaan dhulweynaha Shiinaha. sidoo kale inta badan dekedaha jasiiradda waxyaabaha laga dhoofiyo inta badan waxaa loo dhoofiyaa Shiinaha. gabagabadii Shiinaha waxa uu hadda sugayaa inta laga gaarayo doorashada Taiwan. haddii ay dib u soo laamo weydo haweeneydan hadda hogaamisa oo ay dhacdo, waxaa markaas talada la wareegi doona xisbiga uu taageero Shiinaha. markaasna Shiinaha uma baahnaan doono in uu duulaan military ku qaado, taas bedelkeedana waxa uu heshiis la geli doonaa maamulkaas talada kala wareegi doona haweeneydan. halkaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa warbixintan aan ugu hadlaynay waqti intee la eg ayaa ka haray in uu qarxo dagaalka Shiinaha iyo Mareykanka dhex mari doona. haddii aad ka heshay warbixintan, waxaan kaa codsanaynaa inaad ku sii sheergaraysid baraha bulshada si uu dad badan u sii gaaro. sidoo kale aragtidaada nagula wadaag qaybta commentiga adigoo soo raacinaya sida aad u aragto warbixinadeena iyo haddii uu jiro mowduuc aad jeclaan lahayd inaan kuu soo gudbino. mahadsanid.